Okay. Assalaamu calaykum asxaabta. Waxaan rabnaa inaan tusno maanta qofku jilibka xanuunayo. Jilibka hadduu ku xanuunayo, insha Allah. Suunkaasaa ku xiranaysaa. Alaabtaan anaga hayna. Kan laakiin waa kan personal use-keena. Insha Allah. Waa kaasaa. Laba xabaa hartay. Kanaa hadda anaga iskale kan. Mustafa markana tusaayo sida maaragta loo xirto. Marka hore suunkaa ku dhiijinaysaa. waa knee massager muxuu ahaa jilibka ma ku massageynayaa wuxuu leeyahay maaragtay kulaylisuu xataa leeyahay nambare kala gagadisanoo la kala geynayo leeyahay marka Mustafa na tusayo u jeedin hay daar Mustafa turn it on saa u daartid na tus kaasa ka daaraysa waa kasa gariirisadii hadda geeyey. How many features does this have? There's heating. Okay. There's the vibration. Yes. And there are 3 levels of heating and 2 levels of vibration. Actually, the third one outer. Outer, okay. Yeah. Slow. High vibration. Then you have low heat, medium heat, high heat. Okay, this is good for what? It's good for knee pain, help with arthritis. Arthritis. Like if you have like Rheumatism. Possibly, if you had a surgery, knee surgery, this can help you recover. If you have a knee surgery. Like, anaga aad u isticmaalna waa kaasa. How do you damaged feel? Knees. Damaged knees, huh? Yeah. Jilibka hadda damage kaaga dhacay It arthritis. relaxes knees and it helps, like, I would think it helps the blood circulation in Blood this circulation. area because it's heating up. Okay, how do you open it up? You turn it off? Okay. So kaasa iska furaysaa. يعني easy waaye si loo xirto ama loo furto. Waa kaasa. All right. This when you charge. Halkaas. Comes with a charging pin. Chargerkii waa kaasa. Waa la charge gareynayaa bahalkan. Battery. Battery ku shaqeeyaa. Gudahana inside, let's see inside. Tough build. Yes. This goes to the kneecap.